قبيلة أورون إسوتنا إن أنت رايون قبيلة أورون إسوتنا خلقوا بينو لا تايلية خلقوا بينو لا تايلية قوية ويا لو تسالي محاتقان قوية ويا لو تسالي محاتقان ولو تسميا محاتقان qofka dhalinyarada ah ee da'diisu u dhaxayso ama da'deedu u dhaxayso 20 jir ilaa 30 jir u dhaxayso waa 10 sanadood ee qofka ibn aadamkii u tiirka iyo dhidibada shubka u taagayo noloshiisa inta hadhay oo dhan 10 sanadood haddii ay wax ka khasaaraan ama ay meel kaaga leexdaan ama waxooga qalindaari kugu dhaco aad bay u adagtay nolosha inteeda hadhay oo dhan inaad ka soo kabato waa 10 sanadood ee loo baahan yahay inaad focus samayso ee indhaha iyo dhagaa xidhato ee barnaamijka aad lahayd aad ku socoto oo sidii aad rabtay aad u qorshaysato ugu socoto 10 sanadood waa inaad iska ilaalisaa in waxba kaa qalloocdaan haba yaraatee tii ilaahayna waa halkeeda laakiinse ilaahay dadaalka laftigiisa qofka ka dadaal badan yahay ayuu wanaag ka horgaadha marka waa qasab inaad 10 sanadood is ilaaliso 10 sanadood waxay kaa luma sidaad kaga soo kabataa way adagta haddiiba ay dhacday inaad ka soo kabataa sanadka kaaga luma da-daa wuxuu la mid yahay 3 sanadood ama 5 sanadood oo da-ahaaga dambe ah 30 jirka 40 jirka ayaa kugu qaadanaysa inta 10kaasi jirta wax kastaba kala tuur arrimaha oo dhan meel dhig tacliim waxaad rabtay meel dhig mustaqbalkaaga tiirarkiisa aad ka meel dhig nolosha intii aad ka rabtay meel dhig dhowr 10 sanadood dadaalka aad samaysaa nolosha inta ku hadhay oo dhan 50 60 100 sanadood intii ilaahay ku daayo kuu qoray si wanaagsan baad uga baxaysa hadday hal yar kaa leexato nolosha inta dambe oo dhan bay kaa daba imanaysaa waana kugu adkaanaysaa hadhow inaad ka soo kabato qofka dhalinyaradii marka uu barnaamij samaysto ee uu meel dhigto ee uu ku talagalay inuu horumar ka sameeyo nolosha ee uu ku talagalay inuu mustaqbalkiisa hagaajisto ee uu hiigsanayo nolol wanaagsan ee uu hiigsanayo berri maanta ka fiican ee uu qiiradii iyo niyaddii iyo kartidiiba uu meel soo dhigto uu yidhaahdo halkaasaan rabaa inaan gaadho muddadaa ku gaadho waxaa barbar socda mar kasta awood iyana weyn awood aada u xoog badan oo ka hor imanaysa oo kuu diidaysa inaad hadafkaaga gaadho awoodda noocaasa qaarkood waad arkaysaa waa awood aad arkayso ku hortaagana ku riixaysa qaarkood ma arkaysid qaarba sibay kugu soo gelayaan waxaan jecelahay in maanta ka hadlo 5 awoodaha ka mid ah oo ah kuwa kuu diidaya inaad horumar samayso oo ah kuwa kuu diidaya inaad far dhaqaajiso oo ah kuwa kuu diidaya inaad wax xigsato oo ku niyad jabinaya haddii aad awoodaha u leecdo haddii aad u qosasho haddii aad waxoogaa la yaro qiirooto istiraabal hadda dhegeyso waa rune waxa weeyaan khalaas way kaa takhallusaya noloshaadii iyo mustaqbalkaagina way burburinaya tacabkii lagu geliyana khasaaro noqonaya waxaan ka hadlaynaa maanta 5 awoodaha ka mid ah ta koowaad waa dad nolosha marka horeba ka taagan dhinaca qalloocda waa dad wax kasta kuu sheegaan negative yahay waa dad sidaas oo kale hadday doonaan wax soo bartay waa dad soo dadaalay laakiinse iyaga laftooda ay ka qalloocatay oo markaad moodayo in noloshoo dhan sidaa u wada qalloocdo waa dad inta ku yimaada ku odhanaya kaale maxaad u daalaysaa maxaad waxaan kaga xiiqaysaa maxaad tacliintan u wadaa maxaa jaamacadda 4 sanadood iyo 5 sanadood iyo 2 sanadood oo kala takhasusay 8 sanadood maxaad cimrigaaga u dhamaynaysaa إذا ما أنت متعلم بالحكوشة بشهادة واحدة ولا بالعبد الله بالعيسى بالنمعاء بالآمناء أنتوا بتجمع عليك سوى بحال بتكون نوعهم هيمات قدار بس كفردين ما أنت قفان الريح يعني هرمبر مقارن قفان أديركي أمين أديركي أما بيها ما ولا أديركي أنا دولة تشوي وحبل مقارن دولة واحد بود سام واحد بس كسية محاطقة أيام تقاوي كلها تنعتك وده تاجرين وهذا خسارة تشوش كسوق كفرية برنامج ولا عاسوق كفرية وحنا كنت سير تصاليات أترمي سطور نبض ووحنا أقول رأيه أو شيء يقول كلها تاريخ خلاص مكان هديه تاسو كل واحد ربعين دبتا بدحينا كدغيستا ميدغتنا كسارت ولما تامد دا كسي فيعان ادو لبدا دغبينا كدغيسنا لبدا فريستا oo hore uga socda iyana mid kala jirta
adiga laftigaaga socda ayaaba arkaya wixii nool dhibaato noocaankaasoo nool ayaad arkaysaa markaasaad rumaysanaysaa waxa ku soo niyad jabinaya meel aad wax uga baahatay oo kula muuqday inaan wanaag wax lagu helayno ama musuqmaasuq ama garab ama wax kaaga baahday meel aad ka soo niyad jabtaa jira taa laftigeeda baaba ku odhanaysa anaaba soo arkayba waxaan inaan soconin anaaba soo arkayba inaan wanaag jirin anaaba soo arkayba inaan aqoon iyo karti cid wax isku siinayn taa laftigeedu way ku niyad jabinaysaa mid saddexaad oo adigaa jirta oo dhabqiye ah waxaan oo dhan waa dhabqiyayaasha la yidhahdaa waxay kaa dhabqinayaan barnaamijkaad samaysato o dhan bay dhab isku bilaabayaan way kaa kala tuurayaan adiga laftigaaga tashuush isku furaya hadda tashuush kalaba maaha adigun baaba tashuush isku furaya waxa maqli jiro dadka jin baa ku jira jin kugu jiro baa kugu akhriyayo tashuush aanad kuma talagelin oo waa maxay adigun baaba odhanaya wallahi intaasoo dhan baa lagu soo tabca waalidkaa maanta waa sidan waa iska jilicsan yahay intaasi kusoo sugayay hooyada intaasi kugu soo karisay rafaad maanta ma iyadoo sidaasa unbaad haddana 5 sannadood kale waxaa sii wada tacliin kale sii doonata orodoo iskaga tag iska xoogso qaybkaa baduu galay hebel meelada rag wakaa intuu halkaa badda ka tallaabay liibiya maree maanta jooga yurub ee xoolaha soo shaqaynaya barnaamijtaasi kugu furaya jinkan kugu jira kugu furaya adaa isku furayo walaacan isku bilaabaya mar allaaliya markaad walaacaasi aad meel la gaadho ee kaa kala tuuro xal kuma hayo dhibaata kaa soo gaadhaysa waxa weeyaan dee haddaad ka fakirayso aabbaha iyo hooyada ama noloshii adkeedaad kusoo kortay ood isleeda u shaqee dee mustaqbalkaagood baabi'isaa iyaga waxu soo kordhin maayo waa laga yaaba 2-3 shay inaad ka raflaysaa laakiin mustaqbalkaaganaad baabi'isay dee wuxuu ku haystaa mustaqbalkaaga dambe oo dhan kii aabbaha iyo hooyadaana waxu qaban maysa kii walaaladaana waxu qaban maysa kaagiina kala tuurta oo nolol dambe wanaagsan dee ilaahay baa rasaq ahaya taasi waa goodi laakiin nolol dambe wanaagsan inta muuqata u malay maayo dee inaad kusoo noqoto marka waxa weeyaan adigoo adkaysta oo nin raga iyo gabadhaba noqda oo guntiga dhiisha ka dhiga oo waxyaalaha walaaca kugu abuuraya nolosha iyo reerkiina iyo halkaa kaaga imanayo dhan meel iskaga xidha oo markaa mustaqbalkii aad higsanaysa gaadhi kol haddaad dhowrkaa sannadood ka gudubto sanadaha dambe hadhe oo dhan orod baad ku dhaafaysaa macaan baad ku dhaafaysaa waxaad ku dhaafaysaa dadaalkii aad soo samaysay oo dhan markaa isaga laftiisa jinkaa kula hadlaya kugu dhex jirana inaad iska ilaaliso oo aad hore uga socotaa waa muhiim waxaa yeela jira qaar kale oo dhabqiyan barnaamijkaad samaysatay oo dhan oo kaa kala tuura oo walaac kugu abuura oo dhibaato kuu keena waa dhabqiyayaashay ka mid yihiin maxaa ka mid a waxaa ka mid a ururo ama qabyaalado tashuush ku geliya oo markaa maalan arrin qabiila lagu furaya ama ha noqoto qabiilkiina halgamaya ama ha noqoto qabiilkiina oo arrimo kale ku jira arrimaha qabiilka kuwaasaad u raxlaynaysaa kuwaasaad aada u dhegaysanaysaa kuwaasaad doonaysaa inaad maaragtay wax ka ogaato waa lagugu afuufaya adiga laftigaagii waxaad arkaysaa adigiyo kaba baxay khadkii maaho keliya inaad dee mustaqbalkii baabiisay laakiinse waxaa xitaa laftigeedu dee waktigii aad u heli lahayd inaad dadaalkaaga iyo mustaqbalkaaga iyo tacliintaada oo dhan bay kaa kala tuurayaan waxaa yeela qodobka afraad ka mid a ururo kale maxaa ka mid a ururo diineed baa ka mid a oo jeel yar ku gelinaya jeel yarood arkaysaa lagugu xidhaya adigiiba wax lagugu afuufay hadda waxaa laga yaabaa dee lagamaba yaabaa la hubaa inaad muslimnimada ku dhalatay muslimnimada ku kortay muslimnimada ku dhimanayso muslimnimo kaloo kugu dhimani ma jirto laakiinse adiga laftigaagii ayaa maskaxdaadii ma garanaysaa sidaad u noosheegay inay qaldan tahay noloshanaad ku noosheegay inay qaldan tahay inaad dariiq qaladaba qaaday tashuushkaasaa sida lagugu wado ayaa marka dambe adoo nooloo soo taagan oo 6 laxaad qaba ayaa jeel lagu gelinaya jeel rabbaaniya lagu gelinaya markaase qofkii lagugu xidhanaya noloshii oo dhan bay kaa kala tuuraysaa waxa lagu nacsiinaya noloshan duydaba adiga laguma samayn baa lagu odhanayaaba maxaad ugu dahalaysaaba aakhiraba waa adduunkii dee ilan aakhira dambe oo hadhoo la shaqaysanaya ma jiro aakhira adduunku baa lagu sii shaqaysa haddii adduunkii lagaa quflo aakhirada dambe kuu hadhay aakhira xisaabunbaa hadhay aakhiradii la sheegaya waa adiga taagan imika jeelkaasaa lagu gelinaya qabiilka iyo dadkaa tashuushka diinta watoo dhame adiga laftigaagaba intay tashuushku geliyaan bay kaa kala tuuraya haddaad waxaa sii gasho waxaad qaadaysaa jid la ogaya in halka kugu hogaaminayo sidaa darteed 10kaa sannadood waa inaad indhaha iyo dhagaha iyo maskaxdaba xidhaa oo waxa aad qorshaysatay mooyaane wax kale aanad dhag u dhigin dabcan
يعني دينا الدين تقوانتي ذا كورسات هذا كمرت لكن سين قل لو وحدات تشير هذا وقشوا قبيل هي الدين مثل تونا الدين ما يدين هذا هاي ستة مذهبي يو كوح قوني يو أرميل تهاوين تسكيل على سا هذيك كلام سفي عن بعض من عدوات قصدك ومهمس هي ابن آدم كقارهان اللي يرى كنا بقية نلاش أي مستقبل قوى سياسته اسكدا قفك دليرada مع قفك وين أي نلاش ولا كبابيسا وحويه مركز دادا لبعد تنشري لا سد تنشري رحيس وح مهمة وأنا قلت لها إن السياسة بحال حارة كنكتب إن الشيء كذا ده بقش وحويه وتشوش وين المستقبل كاكالتوري ومركز كواد هرتا وقت يوردن بكاغاريس waxaad galaysaa tashuush waxaad galaysaa wareer waxaad la dagaalamaysaa dad aanad aqoon oo meel yaqaan aanad garanayn jin baad la dagaalamaysaa iyo xeer cirka dadamooji waxaad la dagaalamaysaa habeenii maalin waxbaad akhriyaysaa joornaal baad akhriyaysaa internet baad akhriyaysaa tv baad daawanaysaa dagaal baad dadka la kula wada jirtaa dad kale xulafooyin oo kale kula socda garan ba maysan ugu dambeynta dad kale dagaal kula jirto wadada kala wana dad cirka ka soo degay wax xunba ma jiraan waxa kale siyaasadda ku keensan naxli نعيب تطبع نعيب تاي وذهبيني مالنا هذا الحنية وهذا القاد كود إيه وحنا ونبأ أي نيرفس كارد جاي تسلحات وتشغل هذه كاتشوبس كل دورني يمتي كوحقب سنة يمتي كدولة ما أنت وحكي لي غلو كرب تام مستقبل كان هرتين تقالوا حتى أي تسبب كاتها سياسة الشيء كله يسكحي طبعا المواد بات سياسة ما يربح كاسوقش فود بالكرديس doorashada cid ugu ridaysa waa dooraysa dadka sidoo kale fiican badan kala dooraysa laakiin uu haadeedan kala oo dhan waxa ku jira dad siyaasaddu shaqo labaad u tahay dad shaqadii ka soo fadhiistay dad arrimoodii meel ku soo hubsaday dad reeroodii meel ku soo hubsaday dad mustaqbalkoodii dhistay intaasay bahashu shaqo u tahay iyo dad khasaarayba oo aan kala jeclayn cid khasaaraysa cid faa'iidaysa baan iyo kala jeclayn haddaba markay sidaa tahay adiga dan kuguma jirto adiga dad kuguma jirto inaad cid la culoodo dan kuguma jirto inaad waqti iska qaado dan kuguma jirto inaad maanta oo dhan ku xiiqdo fadhi ku durarkan marka hore mustaqbal samayso mustaqbalku waa 10 sanadood iyo sanad kaalo sanadkii 10 kaalwa waxa uu dhigmaa 3 sanadood ama 4 sanadood ama 5 sanadood oo nolosha dhanba ah cidna 5 sanadood dambe ma haysi waa marad weynaati reeraad yeelatay mas'uuliyad kale ku soo gaadhay baqashadu way kugu badanto sidii markii aad yareedeen wax kasta isku jujuubaysay maaha waqti ma haysi تعليم دم وقت بدل ما هي ليسي أجاي على كتاب بدل كورس وين شرحه يبغى وين مرة واحد ويا شن تاب قضاء ما أنت يدين شرحه ومهم إن كنت داشو سيدي أدو وقف وقال له سيدي أنا كو خلدان سؤال بيان ناس حلقة بين سويد سترة وحن كهذا بقنية نراش شن تون قضاء بيا قضاء بدل كليش رودمي تقول بس بيسوق كسوق كيسيني صح محل وقرتها هذا الشيء ما له وقرتها وهذا مهم إن ذلك شيء كرت هذا يجور waxa ay ku sheegayaan xumaanta iyo dhibaatada hawsha aad wada iyo faa'iido la'aanta ka soo baxaysa hawsha aad wada iyo mustaqbalka laakiin si xal kuma siinayaan markii ay ku sheegi maayaan xal maanta hadduu qof ku yimaado ku raado warta aqalkan yare buulka ama sandaqadan yare meesha degan tahay iskaga soo baxo kaale daartan dhagaxa adig dawaad garanaysaa okay iskuma doorsan sida haddii runtahay oo dariiqii loo marayay saxiix dawaad ka soo baxaysa buulkan daartan dhagaxa ka fiican أما وقف جودة وقاعدين يرد ولا تأجى شباب إسكتورو كله قاعدين كفي عنه كبرح البدن القحط وهذا قلنا سوى قلنا قلنا نلاش كارد بصور من مستقبل كارد في حلكم مش شيء يعني وحي شيء يعني وسدوا وحى الوضع وكحية وحي كفي عناء أما كوقت قالنا أما كورا ما يعني هل كانت شنطة سنوات قوته أنا واحد قوها إن يلا 6 سنوات بيقول قاعدين أو كان بيا كانت هي عن كان ده وأنا قلها كان ما كان يعني تادو بكو أدو بكو لو قيانو تادي كو عايا أدو بكاكل طوري بيتكلم ولا وقرته لكن سيدوا وقت تنبأ تاكرنا يساوي لو كله تجي ما أنت احترضوا كاحمات شيخ يا شريف وذا ذي قف كله قفكو ابن يكو كرجال يا مجر هذا يكو هيستا هذا يكو بكو هيستا نلاش هذه مستقبل كاحمات هذا يكو هيستا قفكو ابن يحبسين يا مجر
kaa qabiilka kugu afuufaya kuu iman maayo geedhka kaa furi maayo in adeerkaa siyaasad ku jira intaad u tagto beriis la soo celinayso reerka kuu masruufi maayo wadaad maanta o dhan wax kugu dhuray albaabka geedhkiisa kaa furi maayo 800 daraar buu ku dhufanaya aqalkiisa kaa furi maayo laakiin marka dambiga gaadho waa goorad kala tuurto arrimahaaga lagaa kala tuuray laakiin ta hore labada ku garanaysaa ah qofku xal aad waxaaga ku bedelato kuma hayo qof aan taadana ku cay xal kalena ku hay kaasi dee taasaad ku garanaysa qofku marka wax kuu sheegay sidaa u eg haddii waxa uu kuu sheegay aan xalkii barbar wadin sheekadiisa iska xidh waxaan rajaynaya in faa'iido kuu noqoto asalaamu calaykum قبيلة أردن إسو تجعان إن أنت رايون قبيلة أردن إسو تجعان خلقوا بينو لا تايلية خلقوا بينو لا تايلية